السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واحد سلام دمان أصحابتي ذا قالقة أصحابتي قالقة رير دبيب رير ددال سيتين في عنتين أما النبات قبتين إلهي إذن كيس وايدي رجينا ملكستو أدونك كجوكتان خير إيه فرحات لسودة دواده والكم اسكسو نقد كلو وناكسن هايه عشر كلام بحنينا سايدين شاقبو فيديو بيهوري xagga xaaji muxuu waaye afkoos wixii cunno ah ma kala laha rag iyo dumar marka waa la cuni kartaa kheyr allaha sii soo dhawaada wixii la cuno wixii la cabo ilaahay caafimaad ha ku daro aamiin ya rabbi ka raali ahaada cod u qaasa lama socdo klibka ama cashirka aan dhehee lama socdo marka videoga la socdo laakiin u raaca youtube kasoo dhagaysta walaalaha qaybta hoose fadhiyo oo cashirka uu usoo dhici doono cashirkan waa cashir cajaa'ib saan oo kale laga rabaa in aad u qaadatid haddaa kaligaa tahay gabdho kaligooda single nala joogo iyo haddaa xaas tahayba laakiin xaaji macoobaan ku caleema saaray ama aan ku magacaabay maaha inaad tiraadid oo cuntooyinka ma cuni karo maamada ragee u doortay marka waxaa nala jooga gabdho aada fara badan maasha allah allah barakeeyo ee xaajigoodana dabiibayo ama qof nin ah u rabo macluumaadka kasoo kabashada infertilityga marka bal hal saxan oo intaana cuntaa ka kooban amaba ka badan kasii koobnaan karo ka warama cuntooyinka markaa aragtid oo gudahooda dhexgashid oo akhrisatiin waxaa arkaysiin shay kasta inuu yahay superfood inuu wato nafaqo aada ugu fiican caafimaadka oo dhan qaas ahaan xagga dhoodhoojinta ee fertilityga maasha allah markii kor looga soo dhaco waxaa la rabaa shahwaad healthia waxaa la rabaa shahwaad aan damage ahayn in any form wax un ay ka qaldaneen allaha sahlo waxa loo mara waayo marka saxankaaga waa inuu saan u qurux badnaado ilaahay idankiisa dhowr nooc uu lahaado cabitaan haddaa samaysanaysiin ama smoothie iyaduna inay saasoo kale u fiicnaato nafaqaa la socoto oo supplementi oo aada ugu fiican xagga hagaajinta caafimaadka rag iyo dumarna way anfacdaa kolley gabarna way qaadan kartaa laakiin ragga usii fiican tahay labada dhinacna haddaad amisonka u raacdin way qaadan karaan maadaama caafimaadka guud ee u fiican tahay iyo caafimaadka murqaha iyo dhanka fertilityga dhoodhoojintiisaba soo dhawaada kheyr iyo farxad la soo dhawaada waxaa ku jiro shay la xirto oo raggu xirto magaciisa ma sheegi kari oo aada ugu fiican qaboojinta xagga cararayaasha markay korayaan xibinta taranka dhexdeeda because qaarkood waxaa dilayo hiidka sida ragga baabuurta wado ragga shaqada badan hayo ragga saacado badan baabuur ku jiray hiidkiisa dadka hard workerka ah xoogaa the only problem with this item waa yara expensive laakiin qofkii shaqaysto waxba kuma aha kheyr allah idin siiyo kheyr allahna sii dhammaan fadlan ka warqab waa ujeedin inay straight ku qoran tahay inuu fertilityga u fiican yahay ragga okay cuntadii waa aragteen oo malaynaa nafaqada waa raaci kartaa waa soo akhrisan kartaa halkaas saxan wuxuu ka kooban yahay adiisi 10 shay uu ka kooban yahay haddii lagu dardaro waa waxyaabaha kale ee lagu dallaco iyo wixii lamida ama cabitaanadiisa ama wixiisa green teagiisa soo halkaas mar ood qadeynaysid intaasoo nafaqa loo baahan yahay wixii kale ood kusii darsan karto oo nuts and seeds ah waa welcome marka saasaa la rabaa inay qadadaada keliya qurux badnaato saasaa la rabaa insha allah cuntada cunaysid u baratid gudaheeda iyo waxtarkay leedahay iyo nafaqaday leedahay marka meel cidla haddaa ka tiraadid oo sawjkayga cararayaashiisa aan maaragtay low ah ama damage maxaa u roon ma la ogaan karo mid walba in saas loo dhexgalo waayo oo la isku duduudo cuntooyinka nafaqada u leh jirka si ilaahay idankiisa loogu helo baxsi iyo badbaado okay cunadan completely waa la qaadan kartaa ninka ragga ah ama insaan u samaysta laba saxan oo noocaana wixii cabitaan smoothie ah qaarkood waa idiisii kala dhigdhigaa midda asiga usii fiican midda adiga kuusii fiican maadaama lagu daray herbka qaarkood ama dhirta qaarkood ee loo sii ammaanay xaaji macow ama loo sii ammaanay xaajiyada ama xaajiye macey marka maasha allah khayr badan iyo farxadaan ilaahay inoo wada weydiiyo dhammaan waa arkayseen clipkii hore ee ovulationka howl fududeynayay waxyaabaha lagaa rabo
dhaladhaladaada laga rabo sida ilaahay has hagaajiye caadadaada laga rabo hormoon leebelada kacsan ama dhacsan laga rabo inay isi saxaan tacabaa galaayo hours aa u baahan tahay oo mid walba aa goonida ugu baratid si markaa saxankaaga uu qurux badnaado waxaa cunaysid u qurux badnaadaan insha allah iyo waqtiga lagu qaadanayo so hawshu ha noo socoto insha allah xaaji macuun waxaan leenahay adeeg wanaagsan caafimaad wanaagsan ilaahay ha keeno owlaad kheyr qabto oo saalixiina sida gabdhaheenna insha allah ugu baasaan xagga ogxaanta hormoonka caada sixista caadaynta aan ilaahay waxaan ka rajaynaynaa xaaji macuunna wixii damage lagu sheegay ama uu tabanayo inuu asigana kasoo kabto aamiin yaa rabbi amurta kheyr allah ka dhiga already oo guuriyaan dareemayaa dad badan oo guri ii reebeen say dareemayaan aan la dareemaa oo farxadda iyo dhiirigelinta ay jirkooda kala kulmeen casharo aada u fara badanaa noo soo socdo oo wacan insha allah xoogaan saaraynaa saa idiin sheegaba weekendka xataa waa idinla joogaa maalintaan imaan waaye ii safra maalintaan idiin imaadane adeegsaanoo hufan oo hagaagsana idiin soo gudbinaa insha allah linka waa ujeediin hortiinoo yaalaa maanta cuntaa idiin wadaa ogtiin dabiib iyo dadaal kab iyo karinoo idiin ogolyahay so linki waa kaasaa haddaa aqoonsato oo aad haysatana waa welcome waaba haysataa haddii aadan aqoonsan ama sheega kugu cusub yahayne fadlan ka doona ama amazon ama intaa sawir ka qaadataan dukaankiina ka doonta laakiin muhiimadda waxay tahay inuu saxankaaga saan u qurux badnaado ka badan iyo ka badan iyo ka badanna waa ku dul darsan kartaa haddii wixii aadan ku dilaynin dabka siduu saxanka u yaalla waad aragteen cuntooyinka qaar waa la huuriyey ama waxaa ka dhigan kartaa steam ama waxaa ka dhigan kartaa rose ama ovenkaa gasho kartaa maasha allah of course wixii badara waa la karinaa si fiicanaa loo bisleyna laakiin waxyaabaha qaarkooda qudaarta ah freshkooda lagu qaadana ama waxaa lagu sameynayaa insha allah biyaha lagu huurinaya marka la qadeeyo kabacdi ma la qaadan karaa green teayada qaarkood yes waa la qaadan karaa ma la qaadan karaa shaaxyada fertilityga u fiican oo ma lagu darsan karaa cabitaanada waa ujeediina amrayna hortiinoo yaala yes waa lagu dari karaa qudaarna infuse waa looga dhigi karaa ama waa lala dhigi karaa smoothie ma qaadan karaa oo nafaqo badan oo fertilityga si boodo la dul dhigay yes waa ujeediin saa isuukiin soo qooshay waa la qaadan karaa cuntadan markaasaa idiin sheegaba xaajigay u fiican tahay xaajiyadana sidoo kale waayo wixii cunno ah ma kala laha marka haddaan xaajiga sheego iyo isdhihin gabdhaha oo ama sawjkooda meel kaloo fog ka jiro ama keligeedba iskeentay programka soo gashay okay gadaala uga dagaa laakiin cuntada way fiicneed no cuntada ma kala laho xaajiga iyo xaajiyadda laakiin waxyaabaha sida supplementiga ama waxyaabaha la xiranayo saa ujeediin insha allah waa idinkaasa kheyr iyo farxada soo dhawaada supplementiga caawa aan juice gareeyay wuxuu aada ugu fiican yahay dadka jirkooda uu daalay ama garaac tabanayo ama sidoo kale nerf oo xanuuno ama tabarta ila garo hadalka ma wada geli kare tabarta qaar ay ku yar tahay marka haddaa gabar madax bannaan tahay ha qaadanin kheyr allah ku siiyo neerfahoo kale haddaa dhib ka qabto ka alamagan ama murqaha gooni ila shargaree dabiibka tag anaa kuu diyaarin doona nafaqooyin ku anfaco laakiin haddaa xaas tahay waa isticmaali kartaa waayo nafaqada gudaheeda waxaa ku jira wax dareenka badinayo marka xaajigana usii fiican xaajiyadana way la qaadan kartaa waa qoyskii isla joogo qoyskii kala maqan kheyr allah ku siiyo gaar iyo gooni igu soo sheeg halkaasaan ka sheekaysan doonaa hadduu ilaahay yiraahdo haye maxaan kaloo idinku soo kordhinayaa hala duceysto hala dulqaato farxadda xaggeeda waa muhiim waa ogtihiin si kastoon kuugu adeego farxaddii ma keeni karo 1 kiilo farxada 2 kiilo saani saane ma keeni karo marka ilaahay ka barya inay amuurta kheyr ilaahay idinkaga yeelo dhammaanteenba aamiin yaa rabbi arrinka kale waa inaa ogaataa nafaqooyinkan hadda la suugaa duduwa waa wax anfacayo gudaha DNA-gaaga ama qof walba anfici karaayo gudaha salkiisa marka waxaanoo tacaba uu kaa galo ama waxaanoo adeega kaa galo halkaaga saxan maxaa u malaynaysaa cuntadaada oo dhan qadadaada quraacdaada cashadaada shaaxyadaada ismuudiyadaada fitamiinaadkaada wixii kaloo goojo iyo soo raaco maxaa u malaynaya marka xoogaa tacabaa gelaayo ilaahay daawaha kuugu daro qofkii
usoo jeesta fertilitygiisa waxaa laga yaabaa inay durbadiiba waxba kugu noqonin ilaahay kuu fududeeyo danta aa ka leedahayn aa hore ku gaartid marka insha allahu khayr allah idiin sahlo allah idiin saqiro dhammaantiin waxaan idinku tabaa inaa faraxsantihiin niyaddana idiin dhisan tahay allaha guul soo hooyo aamiin rabbi haya xaaji maxuu la sheekayso waxyaabahan oo dhan dulmara nafaqooyinka akhrista aadhikooladooda waxyaabahan kale oo la xiranayo ila garo u sheeg sii raadiye amazonka u raaca akhrista arrinkiina hore aa u haysateen tartiib yaa dhinaca leexi dhinacaan usoo wareega laakiin waa markaa fahanto markaa ku faraxdo markaa ma aragtay anigana waa kuu howlfududee linki waa kana waa ku siiye laakiin waa markaa ka tashataan reasonka loo sameynaan waxay tahay cararayaasha inayna damage noqonin gudihiisa insha allah haye I love you so much khayr badan iyo farxadaan ilaahay noo wada weydiiy dhammaan waa inoo iyo saboodka kale hadduu ilaahay yiraahdo waa ku faraxsanaa mar koobaad iyo mar labaad inaan idiin adeego fadlan qofkii igu cusub oo dhanka youtube igala socon doono insha allah waa kaa nambarka dabiibka laga ballansado iyo howlaha privateka ah saaxiibadeeda qaaliga ee programka aan u wado hayehe faahfaahin wanaagsan linkina waa ka idi horyaala iyo nafaqadii iyo khayraadkii oo dhan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu